حتى نينكي قبي وقرن واي حاس كاغا أيا شرفتي وحا كو عياريا نينكا آد صاحبتي أو ماشا آد كشقيسي إسكالي مصلحة بريد لا جردو ماشا كليه waxaan qashirka ninka raaci maayo maslaxay awalan adugu meesha isdhigtay taab gabadhayda waa ku daneystay waa ku hormari muuqaal walba iraalka aanas iiga duubay waa iraalka aanas iiga duubay ilaahay waxaan ka baryaa hortiisa in askaalo hortiisa askaalo in kaar alle ku rid xasan toobo gabadhaas ilmeynaysa waa maslaxo iyo hooyadeed maslaxa ayuu waxa uu ka duubay muuqaalo jirkeeda markaas ay muuqanayaan cawradeeda qayb kamida sida horaadada ama naasaha iyo caloosheeda waxa uu markaas ku amray in ay muuqaaladaas u duubto hadii kale uu shaqada ka cayrinayo hooyadeed ayuu wacay waxa uu sheegay in gabadhan aysan shaqo diyaar u ahayn duruufta ayuu uga faa'iideystay maamadii ayaa waxa iyana markaas ay tiri maadaama qof iska duruufaysan oo ilmo agoona korinaya ay tahay hooyadu waxa ay tiri u duub wax allaala waxa uu ku yiraahdo duub xasan toob si aan uga helno shilimaadka aan markaas ilmaha yaga aan ku biilanayno fursadan ayuu markaas isagu ku helay gabadhan si soo doono ayuu ka yeelay gabar waa u joogtaa oo waa uu qabaa xasan toobow ma aadan jeclaan lahayn in xaaskaaga aad inta muuqaal ka duubto iyada oo qaawan aad baraha bulshada waxa weey soo dhigto Soomaaliya gabadhan aan u hilino muuqaalkan bal marka hore la gareeya aragtidiina sida aad u aragtaan fursadda uu gabadhan ku helay xasan toob oo u muuqata in reerka maslaxo iyo catoosh uu dhisay views gaar ah inuu ku raadsado sida aad markaas adinku aad u aragtaan qaybta comments ka fikirkiina waad inoogu reebi kartaan si share gareeya maanta ay u baahan tahay maslaxo inaanu anagu garab istaagno waxa aan ku garab istaagi kartaa hadii aadan u doodi karin in muuqaalkan meel dheer aad gaarsiiso walaalkayga Soomaaliyeedo si ay markaas u arkaan bulshada Soomaaliyeed dhagarta iyo xaasinimada ka muuqata ninka lagu magacaabo xasan toob oo ummad badan oo muqdisho joogta gabdho badan oo muqdisho jooga mustaqbalkii gabarnimo ku ciyaaray iyagoo qaawan buu muuqaal ka duubay iyagoo xitaa duruufo kala duwan haystaan ayuu waxyaabo badan uga faa'iideystay ninka xasan toob la yiraahdo waa nin markaas wajiyo badan leh waxaana loogu yeeraa xasan toobka musiibada ayaa muqdisho looga yaqaanaa waa nin balaaya laakiin si cuqubadan reerkaaga ay ka soo bixi doontaa xasan toobo wallahi oo billahi oo tallaah waxa jirkiis ama jirkooda dhaadhici doona ciyaalka ku jooga ee 24 hours aad siiso lacagaha xaraanta oo gabdhaha jirkooda qaawan aad ka duubto oo aad ku rikaatayso oo aad fiidiyoyaasha iyo waxyaabaha markaas dhibaatada ku ah aad ka duubto gabdhaha wariyaha gabar waa kula dhalatay waa ku dhaxdaa waa waxaan ku tilmaanaa wax qashka muxuu ah war sharaftii ragga Soomaaliyeed baa ku ciyaartay annagoo joogna galgaduud baanu ka damqanay dhibaatada iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ee magaalada xamar aad ka sameynayso kada dumarka Soomaaliyeed waa dumar qiimo badan waa dumar 24 saac suugaanta Soomaalida iyo geel iyo faraska laga bixin jiray loogana hadli jiray inaad waxa weey ku ciyaartaa waxa weey sax ma haddaad rabto inaad wax ku ciyaarto ma walaasha iyo naagtaada ku ciyaartid oo ka dibta muuqaalo ayuu qaqaawan waxaan ku tilmaanaa xaaskiisa waxa la yiraahdo Faadimo VIP kama ay feerayara maslaxa waa ka feeraweyntahay haddaad rabto inaad muuqaal duubato ma iyada ka duubatid ma wadi gabadhan yarta masaakiinta uga faa'iideysanaya waxa weeye duruufta iyo danta oo bush hooyadeed ay ka deganta magaalada Muqdisho waliba xitaa ma xishoonaya ma qof xishoonaya oo xitaa qabkiisa uu tusayo in waxan ay yihiin wax aan Ilaahay raali ka ahayn oo dulaysinimo ay tahay xitaa waxa weeye muus u muujin wariyaha xasan toob war maxay tahay waxaad sameynayso markii Nairobi aaday anoo dabaalnaa markasta